طيبين الطاهرين وعلى أصحابه الذين اهتدوا بهديه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومهدسنتين بهذينان إن إسبورتيغا إن هرت أولا وتكون مهدسنتين إن مركو هراء تعلاتان بل وحي السنة وقبطة أهرنتين إن تكون بلاواتان إسلام مركز يعني الإسحاسوسيو كدبنه وعمل كستو الله وضو إلهي إن لوغا عبصده intaanan markaanan ka hadlin sunna ahaan waxay ka qabtay doorka ay uga aadan tahay waxtarka walaal ila orod qaybta uga aadanta intaanan ka hadlin qiso ku beegan oo calashaan arrin culus oo dagaal culus qatar dhici lahayd oo lagu daaweeyay ila orod ilaa aan ku sheegahay ila yaabin ka hor bal aan horta wax yar aan taabanno sunnada maxay ka qabtaa suubanaha calayhi salaatu wasalaam oo wax la uumo ilaah sameeyay ugu sharaf badnaa wuxuu yiri la sabqa illa fi an-nasl wal khuf aw al-hafr ma jiro tartan hadii orod jiro waxa weeyaan faras ama geel ama shiish calashaan wuxuu ka waday yaani baabuur waa Toyota kala hadaan ku iraahdo baabuurta dhan waa Toyota bas kama waday calashaan inuu fiican yahay ka wada gaari qatar yahay Soomaa calashaan orodka madaxdiisa waa kuwaas in geel lagu tartamo geel lacana la fuulo lagu tartama jira ama fardaha ama shiishka in lagu tartamo difaacu nafsi ahaan waa inaad barato sida dabaasha shiishko kale gurmadka markii la soo marsiyo ardayda markay dugsiga sare dhameeyaan calashaan taas weeyaan difaacu nafsiga waxa la soo baray midoo kale taas yaani waa orodka suu isugu xigay iyo suu kala qiimo badnaa ثانيا مدة كحيت وحويان هرت قفك ugu sharaf badnaa wax ilaah sameeyay malaa'ig iyo jinn iyo insiba ma sameeyay asaga orad kan nacam waa sameeyay Aisha waxa laga wareeray sayyidatana Aisha waxay tiri yaani safar ayaan ahayn marka suur Aisha gadaalno reeb gadaalan u harnay suur kaale waan ordaynay marka waan tartamaynaa wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa aan kugu ikhtiyaarsan qofkii xaaskiisa ikhtiyaar u ah aan kugu ikhtiyaarsan marka mucaashara wax la yiraahdo jira gabadha aad isla joogtaa inaad ka farxiso shaygu markuu uga farxinayo ila oradu ahaa Aisha marka way wada ordeen maxaan ahayd marka gabar yar oo caata oo marka la guursaday waan ka dheereeyay tir marka safar kale anigiyo cuslaado xoo yar cayilu yiri tir hay Aisha kaale hadana waan tartamaynaa uu iga dheereeyay tir markaasuu yiri haadihi bitilki tii ayaantii tan u qaado marka iga dheereynaysay adigana tan u qaado markaaga يعني حقي مركز سنادي يقفك يقول شرف بدنا أدونك إنه إلى أرض سماء واتاس ما حيت مركز مشكلة وين أولو حلية إلى أرض رسولك عليه الصلاة والسلام أصحابتي سبحان الله صار شيئين لرا أن الحارث بن أبي الضرار قبيل مريسع لرا إنه أسوا أبا أولا يعني دجال أي ربان إنه كوجبان مجالة أي شوغان أو مدينة marka wuxuu shartaan aan ka hortagna hadii ay meesha noogu dhaximaadaan aan joognay magaalada dagaalka caruurtii iyo ilmihii iyo dadkii jilicsanaayo asiibi doonaa banaanka aan ugu tagno banaanka yaa loogu tagay ceel muraysic leeyahay waa laga adkaaday qoladii inta la diriray markii laga adkaada waxa la islaacabay ceelka marka nin leeyahay marka jahjaahul qafaari oo dadkii marka asxaabta labay kala ahayeen qolana markay ka soo haajirtay waa qaxooti qoladan waa qoladii ku soo dhaweysay magaalada Madiino Ansaar aalira qoladaas soo haajirtayna muhaajiriin waa kuwa ahaa marka mid muhaajir oo leeyahay jahjaahul qafaari amid ansaaru ceelkii ku garbiyay markaas uu yiri yaa lal muhaajiriin wariya muhaajiriin ee uu yiri tolbeelay amal kuwa soo gurmaday wal isla dhacay xogaa yaa la isgarbiyay hadal marka meesha ka bilowday hadalkiya wuxuu sii gaar nin la Abdullah bin Ubay oo asaga inuu rumaysan yahay muslim yahay u muujiya laakiin run kama ahan marka uu ka faa'iideysto wuxuu yiri wallahi annaga kuwan soo qaxay maanta waxaan la midnahay kuwii la yiri sammin kalbaka yaakulak eygaaga cayili adiga ha ku cuna markaas kadib ayagoo qaxootiyo yaaban ayaan soo dhaweynay magaaladeennii dajinay kadibna inta nagu bateenay haddana nagu biyo keeneen laakiin haddaan laabano waxaan tusi doonaa qofka qaxootiga ah oo liitaaho ninka casiiska ah muwaadinka inuu
كأري دون مدينة وآية القرآن لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من هالأذل هدان الله بأن مدينة كو الدلقة كو شرفت لوي كأري دونان والدلقة العيري دونان وريام رسولك الله الله هذا الكي waxaa soo sheegay in Zayd bin Arqam marka waa la kala safar gaaray fidna bilaabatay joojiye ma dhahin marka rasuulka kaleey salaatu wasalaam bal wuxuu naaday irxalo hala socdo bas socod hala sameeyo